بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كسو دوادا برنامج كيني سؤالها يقيبتي سي طبنات قيبتان طبنات وحانوك جوابي دونا إن شاء الله تعالى كو إيتوان سؤال إنك سو غاري دنكا إي واتسابكا. سؤال شكوات وحالة هاي سائل كان وحولية هاي nebiyada ambiyada yani ambiyada jannada ay galayaan ma midka muslimiinta ay galayaan oo kala mise waa mid gaar ah. run ahaantii jannooyinka ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu kala fadilay wayna kala sareeyaan. jannooyinka waa darajaat way kala sareeyaan, naartana waa darakaat way kala hooseeyaan. haddaba ambiyada jannada ay galayaan waa janno yani oo sareeso. maxaa yeelay muslimiinta jannada way galayaan waa sax, laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam axaadiis fara badan wuxuu ku sheegay qofkii aniga waxa sameeya su'aal ahaan qofkii dabeecad wanaagsan oo kale ama qofkii agoonta oo wanaajiyo oo kale aniga asaga jannada hal mar ayaan wada galaynaa, yani saaxiib baan ku noqonaynaa. micnaheedu maxaa waaye meesha jannada ambiyada ay ka galayaan uu ka galaa. marka jannada waa la wada galayaa, laakiin jannooyinka ayaa kala sareeyaan. run ahaantiina bani aadanka caadiga ah iyo ambiyada inay ambiyada darajo sareeyaan cid kasta way ogtahay. marka jawaabtaadu waxay noqon doontaa walaalkeygiyow ama walaashee jannada way kala sareysaa. muslimiinta naftirkooda ayaaba kala jana sareeyaanba, inta ambiyada la gaarin ayagaaba kala jana sareeyo. su-aasha labaad isla saa'ilkaasaa iska leh sida ugu fudud oo qur-aanka lagu xifdin karo ii sheeg ayuu yidhi. run ahaantii horta waxaa muhiim ah qofka hadduu rabo inuu qur-aanka xifdiyo horta inuu hami leeyahay. hamigaa shay muhiim ah. hamiga waxa waaye alhimma alcaaliya. haddaad leedahay meel sare ayaad gaaraysaa. qur-aankana waa waxa ugu fudud oo la xifdiyo markuu ilaahay kuu fududeeyo oona hami aad leedahay. waxaad u baran kartaa ay sheegay waxaad u baran kartaa maqra u xifdin kartaa, waxaad u xifdin kartaa xisib u xifdin kartaa. almuhim adiga sida kuugu fudud oo bogboga ah ama laba bog ah u xifdin kartid waxaa ka muhiimsan inaad hami leedahay. haddaa hami leedahay hamigaaga cid kaa hor istaagaysa male insha allahu tacaala. hami ha loo yeelo. saa'ilkan saddexaad wuxuu leeyahay hilibka ay qalaan gaalada oo aysan bisinkana u qabanin ma la cuni karaa? jawaabta waxay noqonaysaa maya, ma la cuni karo. gaalada waxay gowracaan oo aysan bisinka u qabanin ma la cuni karo. isla saa'ilkaas haddana wuxuu leeyahay aabbahayga anigoo ogeen nin ma igu dari karaa? micnaha waxa waaye adoo maqan oo kale ama adigoo ka warhayninba aabbaha inta ku soo wacay ku dhahay haye nin hebelan ku sii ninkaasaa ninkaaga ah ma dhihi karaa? run ahaantii maya. waxaa loo baahan yahay in gabadh la weydiiyo. nabi sallallahu alayhi wasallam gabar ansaari ayaa u timid oo ansaar ah. waxay tiri aabbahayga nin aniga aan rabin ayuu igu daray, qasaboon igu daray, igalama tashanin. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi guurkaas ma jiro, waa laga laabanayaa. maxaa yeelay gabadha waa in la weydiiyaa oo la yidhaahdaa ayadoo jirto in weligeeda uu ninku dari karo, haddana waa in gabadha la weydiiyaa oo la yidhaahdaa ninkan maku anfacay, ma soo sheekaysateen, isoo fahma in la dhaho. maxaa yeelay guriga wax dhaqi doono oo ninkan qol u geli doono waa gabadha. aabbaha ma aha inuu lacagtaas yar fiirsado oo gabadha ninkii rabo inuu iskaga daro. gabadha waxaa muhiim ah guri inay ku qanacsan tahay ee gurigaas dhaqan karto. ama gabadha haddii la khasbo khasab waxba maku imaan karo. number 5 su-aasha shanaad isla saa'ilkaasaa iskale. gabadhaasi waxay leedahay haddana aayatul kursi ma akhrin karaa anigoo daahir ahayn? tusaale ahaan dhiig caada ii joogo ama umul baan ahay, haween walba aayatul kursi ma akhrisan karaa? waa akhrisan kartaa haddaadan kitaabka taabanaynin. kitaabka ha taabanin, dusha waad ka akhrin kartaa aayatul kursi, adkaar, qur'aan waad ka akhrin kartaa dusha, laakiin kitaabka ha u dhowaanin. saa'ilkan lixaad wuxuu leeyahay su-aashaan ay ku dhowdahay
anigoo xeed ii joogo ama anigoo daahir ahayn wax walbo aan sameynayo bismillaahir rahmaanir rahiim ma ku bilaabi karaa oo magaca ilaahay afkeyga ma ka sheegi karaa haddii daahir aanan ahayn haa waad ka sheegi kartaa adkaarta ilaahay waa aqrin kartaa magaca ilaahay waa xusi kartaa waxa la diidayo waxay tahay adigoo daahir ahayn in kitaabka alle aad taabato saa'ilkan toddobaad wuxuu leeyahay asagana waa gabar ayadana waxay isoo weydiisay cadarka dumarka goormee loo ogol yahay waxaa maqlay ayaa dhahday in laysku yacni hadda kahor waxaa maqlay culummo dhahayso gabadha catar ma u dhowaan karto ma marsan karto qofka dumarka ah qof kale waxaa maqla dhahaayo way marsan kartaa gabadha cadarka hadday guriga ay joogto horta nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu diiday in gabar ay catar soo marsato kadibna ay bannaanka ay u soo baxdo dad ajaanib ahna caraftaasi ay sankooda gaaraan haddii caraftaasi gabadhaas ay la soo baxdo oo rag ajaanibka ahna ay soo agmarto kadibna caraftaasi ay dareemaan gabadhaasi wuxuu ku sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam inay tahay zaaniyad qof zinaysatay oo kale waay abu hurayra wuxuu arkay gabar intay catar soo marsatay banaanka u soo baxday wuxuu yiri guri ku laabay soo qubayso waa zinaysatay ama gabadha gurigeeda ay joogto oo gurigeeda ay ku eg tahay aysan banaanka baxeenin albaabka aysan istaageenin qolkeeda ay ku eg tahay gurigeeda waxyaabaha carafta way marsan kartaa wax dhibaato ah ma leh maxaa yeelay sheega oo waxyaabaha carfaayo diinta islaamka wuu nafaray maxaa yeelay wax uraay ama waxyaabaha oo raa'ixada kariihada leh diinta islaamka ma aysan amaanin haddaba jawaabtu waxay noqonaysaa gabadha haddii gurigeeda ay joogto aysan ku bixeenin waxaa dhib ah adigoo guriga joogtid cadarkii marsaday banaanka u baahanaysaa inaad aado isla dharkii cadarka kuu marsanaya banaanka ku aadaysaa taas la diidan yahay ama laakiin haddii guriga aad joogto xilli habeenkii oo kale ama aseexan rabto ama guriga soo qubaysatay oo kale kareem carfaayo catar yaroo carfaayo barfuun yar deodorant yar oo aad ismarsato gabadha ay marsato gurigeedana ay joogto aysan bixin wax dhibaato ah ma leh kaliya waxaan diidanahay oo diintana ay diiday waxay tahay in cadarkaasi banaanka la aado gabadha hala qabo misiyaan la qabin cadar inay marsato banaanka ma ku bixi karto maxaa yeelay zamankan dambe waxaa batay gabdhihii waxay isku soo barfuuminayaan raggi oo kale suuqay u soo socotaa cadar ay soo marsanaysaa meel hebel u socotaa barfuuna u marsan gabadha ku soo marayso waxa is leedahay nin rag baa ku soo maray markaad fiirsana gabar waay caraftaasi heleen raggaa sankooda galay ayada ku dambaabaysaa waxaana la siinayaa dembi ah inay zinaysatay oo kale su-aasha sideedaad saa'ilkan wuxuu leeyahay su-aashu waxay leedahay ninkayga haddaan gogosha aan u diido oo micnaha ninkayga ii soo baahday jamaaco iga rabaa wuxuu rabaa inaan wada seexano anigana waa u diiday waxaan iri meeshan waxba kuuma yaalaan ka soco meesha waa odayga waxaa la yidhi dib u laabo dembi miyaan leeyahay maxaa iga soo gaaraayo wixii ka soo gaaraya nabiga ayaa sheegay sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu yiri gabadha ninkeeda hadduu wax weydiisto oo uu dhaho waan rabaa ee u diido oo ku baahanahay inaan ku jamaacaan rabaa ee u diido haweenkii asagoo xanaaqsan waaga u bariyo haweenkaasoo dhan malaa'igtu waxay habaaraysaa gabadha way lacnadaysaa naxariista ilaahay allah kaa fogeeyo iyo waxyaabo intaas ka badan ay kugu habaaraysaa malaa'igta waa goormee adigoo caafimaad qaba oo ninkaaga wuxuu ku weydiistay aad siin kartid oo gogosha aad u samayn kartid waxaa rabto hadda asaga wuxuu rabo aad u diido oo aad dhahdo meeshaan saaxiib aayad ma ka qaadanaysid oo asagana asagoo xanaaqsan oo isciilkaambin ay hadduu seexdo intuuba xanaaqsan yahay haweenkaasoo dhan malaa'igta ku habaarayso gabdhooy ilaahay ka baqa waxa waaye ragga yaan lagu adkaynin haddii wax la siin karo al iska siiya insha allahu tacaala haddii kale dembiga ka imaanaya meesha malaa'igta inay ku habaartana waa dhib haddiiba wax aad siin kartid miskiinka iska sii su-aasha sagaalaad gabadhan waxay leedahay biilka la isiiyo ayaa wax iga soo hara ninka odagayga biil buu isiiyaa biilkaasi waxbaa iga soo hara wixii iga soo haraa meel dhigtaa waan urursadaa qaaraanan ku bixiyaa iyo waxyaabo kale oo la iga baahdo
diintu maxay ka qabtaa marka haddii xoogaas yar ii aruurtay asaga inaan u sheegay khasab miyaa asaga haddii biilkii adiga kugu filnaa uu ku siinaayo jawaabta waxay noqonaysaa asaga hadduu biil kugu filan ku siinaayo oo adigana si sax ah aa guriga u biilaysid oo waxaa la diidan yahay gurigoo qabyo ah aa ka dhigto oo guriga wixii loogu talagalay aad u qabanayso oo xoogo haddii kuu soo harto xoogadaas meel waa iska dhigi kartaa dhib ma leh laakiin waxaa la diidan yahay gurigoo qabyo ah aadna inay madax ku yaalaan $10 lagu siiya su'aalaha maalintii waa baxe $6 $7 camal ku soo gaagaabinaya hooshoo dhan waxaa laga yaabaa in moos aadan soo gadin waxaa laga yaabaa ansalaatada inaad soo tagto waxaa laga yaabaa babaygo duq u baahnaa inaad soo tagto wixii qabyadii ka yihiin waxaad meel dhiganayso xaq islaameed waay ama laakiin gurigaaga haddii mustakfi ka dhigto oo wixii lagu talagalay qada quraacasho ama wixii lagu ballamay haddaad diyaarinayso oo $2 iyo $1 kuu soo haro waxba dhibaato male meel iska dhigo laakiin iska ilaali in gurigo qabyo ah ama aad dhahdo guriga maanta qada iyo cashilan karinaynaa quraac waa loo goynaa camal haddii aad dhahdid oo xoogaada meel aad dhigitid cidka yeelaysa male xoogaadaas waa soo bixinaysaa ogow laakiin haddii guriga okay ka dhigto xoogaadaas waxba dhibaato ma leh saa'ilkan tobnaad wuxuu leeyahay wiilasha calaamadaha lagu garto inay qaangaareen maxay tahay qofka wiilka ah ama ninka dhalinyarada ah ragga qaangaarkooda maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa ugu horeen shahwada inay ka imaado horta haddii shahwo ay ka imaado wuu qaangaaray 15 sano hadduu gaaro wuu qaangaaray haddii tinta hoose usoo baxdo tinta hoose hadday usoo baxdana wuu qaangaaray dhowr calaamadahaasi haddii lagu arko wiilka wuu qaangaaray ama gabadha waxay ku qaangaaraysaa ayadana haddii dhiig caadada u yimaado ama haddii shahwadii ay u imaado iyada tarkeeda haddii tinta hoose usoo baxdo waxaasoo dhan waa lagu gartaa qaangaarka su-aasha 11 oon ugu dambeysa gabadhan waxay leedahay dad baan wanaajiyaa oo aad iigu dhow ama iiga fog xataa ha ahaadaan waan wanaajiyaa ayagana xumaan ay igu bedelaan wanaajiya isleeyahay qurxi meel fiican gaarsii haddana xumaan ay igu bedelaan go-aan waxaanba ku gaari dadka dhan aan faraha ka qaado keligeyga aan noolaado ka waran ayaa leedahay sheekho arrintaas run ahaantii qof walbo wanaag aad u samaysid يعني واجب معها إنه هناك وجود أديك النبي صلى الله عليه وسلم أسأله هناك سمينايو دتك هناك وشيء جاي خير كفرايو هذانا أبالكيسي وحلقات جاي إن أسأله سجود سن خشين لوشوا جوري سهرتي سخط حلو قد عاديو أرين تاسي أرين أديك هوري سواي دت بدنا لقول سميه أديك واجب كاجو حتى إن دول خاضته عندك وجوس حريري عندك نعذ جعلو عندك كو حناخذ فرحات أموجي عندك وجي كو تبتا أو وجي كب كان إسكاركتو وخصل ابتسامة إسمايل فرحات ألاك نولانا أساقنا عيلو نولانا أنا وحان كول تلين لها عندك كو حميسو هاوجو جنين هوش هذا إسكوضو وناجي هاكو حمايو وناجي وقدام بين أساق لغيا وإنو إسكينو أذيك وناجا وضو عندنا هو أبييلين ساسبان كو دردارما إن شاء الله تعالى كوي تونكا سؤال بان سو غاري وادكم هدسنتين دابشدينا إسدا أن وضع صعنا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.